waxa dib u soo noqonaya wax u muuqda dilalkii dhici loo geysan jiray Soomaalida ku dhaqanay dalka Koonfur Afrika waxa dil loo geystay habeennimadii xalay ahaa muwaadin Soomaali ah ku sugnaa tuulo hoos tagta magaalada JOHNESBURG oo lagu weeraray goobtiisa ganacsi iyo mid kale asagana lagu dhaawacay isla goobta tani ayaa cabsi baaxsani ka muujinaya muwaadiniinta Soomaalida qaxootiga ku ah waddankani South Africa bilihii u dambeeyay ay ka nasteen dilalkii dhaca loo geysan jiray ganacsatada Soomaalida ayaa xoojiyay amaankooda si uu yaraado dilalkii dhaca loo geysto Soomaalida hadda waxaad arkaysaa goob walba oo ganacsi ay Soomaali leedahay inuu taagan yahay waardiye taasina waxay muujinaysaa sida ay Soomaalida ugu diyaar garoobeen inay iska dhiciyaan kuwa caadaystay dhibaateynta Soomaalida ganacsiga ku leh gudaha waddankani waxaa laga sugaa in uu wax ka qabto safiirka cusub ee loo soo magacaabay Koonfur Afrika Maxamuud Cabdullaahi Xuseen Aboke xafiis wareedka TV-ga caalamiga Royal 24 magaalada JOHNESBURG dalka Koonfur Afrika